السلام عليكم. سودو maanta insha Allah taala waxaan ka hadlaynaa apoptosis. waxaan ka soo hadalnay intuu badan casharadeenii hore physiology, laakiin wixii maanta ka dambeeya insha Allah waxaan soo dhexgeli doonaa cashiro oo pathology ah. maanta cashirkan ugu horeyso wuxuu noqon doonaa insha Allah taala apoptosis. Okay, apoptosis waxaa kaloo jira wax la yiraahdo necrosis. Okay, kaliya maanta waxaan ka hadalnaa apoptosis. حيث سوسو إن شاء الله تعالى وعن كل واحد لنا نيكروزيس. وام حي أبوبتوزيس وام حي شغال ونوقف أبوبتوزيس يصيروا كله قاب وضع أبوبتوزيس عن كهذا. سوي جدا العنوان كنا وأبوبتوزيس. أبوبتوزيس وحالي هذا أبوبتوزيس وحالي هذا وبروجراميد cell death. cell death. cell كي إنه إسبروغراميو سو إسكوديلو. أوكي ما كلام عليه كنا cell suicide. cell كي إنه أسي إسديلو أم يسعجو أو حالي هذا apoptosis. apoptosis normally وphysiological. معناه هو normal. Apoptosis هو physiology not pathology. وين أتخانق؟ Apoptosis مركو دعاية ما عن عذر لكن هو physiology وواحد قفك بلا آدم وفي عينه apoptosis ده. وحنا عنه هو programming cell death وcell suicide وphysiological. Okay, not pathological. Okay, وما حي مركز شغال ونقطة محاولة مركز function of apoptosis محاولة. apoptosis كده. فإيديس محاولة. apoptosis أنتوا بدن حالي هذا وهو مهم وياي حل يعني سو خالدنا كده وهو مهم وياي embryological أيوه مهم وياي. embryological تصال أهان إنه جمعك وعلوش كجلو وحاسوب سمي دون حبنوين بلا. أوكي وحكمي ده جمعها يرسوب سمي دون. جمعها مركي يسوب سمايا وحسوب سمان سيدنا وكله. gacmaha way isku dhegan yihiin. Okay, ma kala furno. waxaa ku jira marka meeshaan cells tissues. marka waxaa la rabaa marka tissueskaas in laga bixiyo sida gacmaha sax u noqdaan. marka waxay marayaan process la yiraahdo apoptosis. marka ma noo fiican tahay mise ma noo fiican tahay gacmaha in insaan loo kala furo ma noo fiican tahay. waa normal. Okay, wax aan noo fiican. apoptosis maxaa waaye inta badan embryological markii la joogo gacmaha ayuu caawiyaa cellska ku jiro markii gacmaha cunuga markay samaysmaan ay samays doonaan cells tissue ku jiro ay inta kala furfuri doonaan ay dili doonaan marka cells kan ay dili doonaan waxay mari doonaan xaliila apoptosis. markay dhintaan kadib gacmihii way kala furmi doonaan. marka waa noo muhiim apoptosis. hadda xogaayar macluumaad waa ka haysanaa apoptosis. waxaan u dilaynaa marka hadda morphological changes during apoptosis. apoptosis ka markuu dhacayo maxaa isbedelaya. Okay, ku dhaca apoptosis. horta apoptosis waa inaad taqaanaa waa qaab oo cell u dhimanayo. Okay, laba qaab oo cell u dhintaa, necrosis iyo apoptosis. necrosis inta u badan waa cudur pathological way, laakiin apoptosis waa physiological. Okay, waxaa fiirinayna marka apoptosis markuu dhacayo cellka isbedelada uu marayo si uu u dhinto cellka ayaan fiirinayna kaliya. Okay, ujeedaan cellkan waa normal waa cellkan wuxuu leeyahay endoplasmic reticulum, nucleus, Golgi apparatus, mitochondria, organelliskiisa waa u dhameystiran yihiin. cellskiisana wuu fiican yahay cellka. Okay, laakiin fiiri picture-ka ku xig maxaa dhaca. fiiri cellkii wuxuu noqday shrinkage, waa isku imaaday. fiiri cellka wuxuu noqday shrink, cellkii waa yaraaday. Okay, nucleuskii waxay noqon doontaa condense, isku imaan doonaa inaa waxyaabahiidan condense ayay noqon doonaa. كو محل عايب cellka wuxuu noqon doonaa shrinkage. cellka waa isku imaan doonaa apoptosis markii la joogo. shrinkage very important waa sidoo kale condense ay noqon doonaa. Okay, condense chromatin condense. Okay, chromosome condense. marka waxay noqon doonaa marka condense waa isku imaan doonaa. Okay, gudihii waa isku imaan doonaa nucleus condense. Okay, xaalad kale ayuu soo mari doonaa marka changes markuu dhaco kadib haddana step kale ayuu soo gudbi doonaa. step kan inta u badan
waxaa sameysmo waxaa la yiraahdo cell membrane ayaa cilad ka imaata. Okay, cell membrane fiiri wuxuu subsanaad wuxuu sugi waxa la yiraahdo blips ana waxyaabo madax soo taagan oo kale. Okay, madax soo taagan so fiiri this one so membrane ki muxuu sugi blips ayuu sugi marka xaaladaas ayuu mari doonaa hadda kadib markuu kusoo gudbo kadib maxaa dhacaya cellkii uu burburi doonaa so waxaa lagu keedin doonaa marka qaab physical ahaan ayuu subsami doonaa cellkii wixii burburi gudaha ku jiro. This is the waxaa loo yaqaanaa apoptotic body. Okay, apoptotic body ayaa loo yaqaanaa apoptotic body yani cellkii hadda khalaas waa u dhamaatay so marka waxay noqdeen as physical ahaan ayaa loo wixiyay. Okay, so waxaa imaan doona marka waxa la yiraahdo macrophage ayaa imaado. This is the macrophage ayaa imaado. Markuu imaado kadib wuxuu sameyn doonaa macrophage wuxuu arki doonaa apoptotic bodies so wuu tagi doonaa wuxuu sameyn doonaa waxa la yiraahdo phagocytosis wuu la doonaa wuu dhunji doonaa wuxuu dhihi doonaa waa baahnaayo ani waxa cunaa baraadinaa ani wuxuu arki doonaa apoptotic bodies so wuu ku tagi doonaa apoptotic body so marka manoo fiican tahay mise manoo fiicna cilad mana gaarsiinin cells kale dhibaato looma geenin macrophage ku imaaday wuu qaatay khalaas cellkaas meesha ku tagay. Okay, so marka this is the maxaa la yiraahdaa changes ka dhacayo markii la joogo apoptosis. Kow waxaana waxa ugu muhiimsan shrinkage cell shrinkage. Okay, cell muxuu sameyn doonaa shrink isku imaan doonaa. Kow isbedelka dhacaya. Labo chromosomal condense and DNA sidoo kale waxaa la DNA fragmentation ayaa dhacaya. DNA way kala qaybsan doontaa ayada. Labo mata saddex waxaa dhici doono cell membrane lips inuu suubiyo. Okay, sida geeso kale. Afar waxaa dhici doono waxaa suubsami doona waxa la yiraahdo apoptotic body oo macnihiisu yahay khalaas waay apoptotic body ayaa suubsami doona. Then maxay imaadaan maxaa dhici doona marka waxay imaadaan macrophage kadib wuxuu sameyn doonaa phagocytosis ku tagi doonaa uu cuni doonaa. Okay, ilan waa waxaa la yiraahdaa looma baahna. Okay, waa wax loo baahnay so macrophage markuu arko waxyaabahaas oo kale waa in la nadiifiyaa marka. Okay, ma ahan inay jirka galaan so marka macrophage ku imaan doonaa wuu nadiifi doonaa wuxuu ku sameyn doonaa phagocytosis. So this is the main importance وهذا apoptosis. Next lecture إن شاء الله حكان دونا necrosis or dhammaystiran إن شاء الله تعالى. Thank you.